kalkaaliyaal caafimaad oo hor leh ayay dowladdu tilmaamtay inay u diri doonto dalal saaxiibala ah si ay halkaasi uga soo howlgalaan khibradooda xagga caafimaadkana ay u kobciyaan. wasiirka caafimaadka dalka Mutahi Kagwe oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in 13 kalkaaliye oo dheeraada shalay oo Isniin ahayd ay u baxeen dhinaca UK si halkaasi ay uga howlgalaan, waxayna qayb ka noqonayaan tiro kalkaaliyaal caafimaad Kenyan ah oo horaan dalkaasi uu qaatay islamarkaana uu ogolaaday inay halkaasi ka howlgalaan maadaama khibradooda caafimaad lagu qancay. Mutahi Kagwe waxaa sidoo kale uu tilmaamay in Kenya ay heshay codsi uga yimid dalal saaxiibala ah islamarkaana ay dalalkaas u diri doonaan tiro ka mid ah kalkaaliyaasheeda caafimaadka. sidoo kale waxa aan helnay tiro dalal saaxiibanala ah oo Kuwait ay ka mid tahay oo aynu ka wada hadalnay sidii aan u gabagabayn lahayn arrinta ku saabsan inaan halkaas u dirno tiro ka mid ah kalkaaliyaasheena, waana ay ku qanceen waana u diri doonaa ayuu yiri. sidoo kale waxa uu tilmaamay in dalalkaas ay aadi doonaan kalkaaliyaasha caafimaadka Kenyaanka ay ka mid yihiin Italiya iyo weliba dalal kale, wuxuuna cadeeyay in kalkaaliyaasha Kenyaanka meel walba oo ay tagaan ammaan ay ku mitaysanayaan sida qorshuhu uu yahay, islamarkaana lagu ogaaday warqad is-afgarad ah oo ay wada galeen 2021. dowladda Kenya iyo dowladda Britain ayaa waxa ay muujinaysaa inay ka wada hadleen in ugu yaraan 20,000 oo kalkaaliyaal caafimaad Kenyan ah ay ka howlgali doonaan cisbitaalada ku yaala dalkaasi. wejigii ugu horeeyay ee lagu diray kalkaaliyaashan caafimaadka ayaa waxaa ku baxay 10 kaliya, iyadoona 10kaas ay ahaayeen kuwa si wanaagsan ugu soo baxay marka la eego luuqadooda iyo fahamka ay ka haystaan xagga caafimaadka. welina waa uu sii socdaa mashruucaasi. kalkaaliyaal badan oo xagga caafimaadka aad ugu wanaagsan ayaa la rajeynayaa inay ka faa'iideystaan mashruucan islamarkaana halkaasi waayo cusub ay ka bilaabaan.